waatay daawadayaal xalay sheekadu waxayna maraysay Shahrisaad oo tiri waan ka sheekaynaya haddii boqorku noo ogolaado markaa boqor Shahriyaar hadalkaasi maqlay ayuu yiri bal sheeg aan maqalnay sheekooyinkaaga mid ka mid ah habeenkii koobaad sheekadii taajirka iyo cifriidkii Shahrisaad waxa ay sheekadii ku bilowday waxa ay soo gaaray boqorow inuu jiray nin taajir ah oo xoolo badan iyo caruur balaha wuxuuna ahaa nin aamin ah sidaas darteed bay dadku xoolahooda ugu dhiiban jireen maalinkii dambe ayuu ninkii safar galay wuxuu socday oo markii dambe wuxuu aarsaday geed si uu ugu nasto cabaar markuu geedkii fadhiyay ayuu kolay uu watay kala soo baxay xoogaa timir ah isagoo bilaabay inuu cuno wuxuuna timirta lafteedii ku tuuray meel u dhow wax yar kadib waxa agtiisii ka kacay boor aad u weyn haddii uu sii eegay waaba cifriid aad u weyn oo gacanta ku sita seef qara weyn aadna af badan cifriidkii siduu soo socday wuxuu kor yimi ninkii taajirka ahaa wuxuuna ku yidhi waan ku dilayaa sidaad wiilkayga u dishay markaas ayuu ninkii taajirka ahaa yidhi sidaan wiilkaaga ku dilay maba arkine cifriidkii wuxuu yidhi adiga markaa timirta cunaysay laftii aad tuurtay waxa ay wadnaha uga dhacday wiilkayga oo isla goobta ku dhintay sidaas darteed qisaas ahaan ayaan kugu dilayaa adiga markaas ayuu taajirkii yidhi aniga kama warqabin inuu wiilkaagu meesha joogay ee iska kay cafi hase yeeshee jinkii wuu diiday wuxuuna ku adkaystay inuu wiilkiisa uga qisaasi doono markaas ayuu ninkii taajirka ahaa yidhi cifriidow anigu waxaan gacanta ku hayaa xoolo badan oo ay dad leeyihiin kuwaasoo ammaane ahaan iigu dhiibtay waxaan leeyahay xaas iyo carruur ee fasax si aan qof kasta xaqiisa u soo siiyo waxaan kuu ballan qaadayaa markaan qof kasta xaqiisa soo siiyo inaan kuu soo noqon doono si aad wiilkaaga igu qisaasto hadalkayganna alla ayaa wakiilayga ah markaas ayuu jinkii ka oggolaaday sidii ayuu ninkii ku soo baxay wuxuuna yimid magaaladii uu deganaa isagoo isugu yeedhay dhammaan dadkii iyo ehelkiisii si uu qof kasta xaqiisa u siiyo markuu dhammaan dadkii xaqoodii siiyey ayuu u sheegay siday waxu jiraan iyo xaalku halku marayo markaas ayay dhammaan qoyskii iyo ehelkiisii wada ooyeen iyagoo sagootiyey aadna uga xun siday wax u dhaceen ninkii maadaama uu ballan qaaday si uu ballantiisa u oofiyo markuu qof kasta xaqiisii siiyey ayuu soo baxay isagoo soo aaday halkii uu jinnigu kula ballansanaa wuxuu soo socdaba isagoo kafantiisii wata markuu yimi geedka hoostiisii ayuu iska fadhaystay wuuna iska ooyey xoogaa kadib isagoo ooyaya waxa meeshii soo maray oday wata deero wuu salaamay ninkii wuuna waraystay wuxuuna ku yidhi maxaa keligaa halkan oo ah boholagaleen jinniyadu ku nool yihiin ku fadhaysiyey oo aad ugu ooyeysaa ninkii taajirkaa ayaa uga sheekeeyey sida wax u dhaceen markaas ayuu odaygii go'aansaday inuusan meeshan ka tegin oo qisada dhammaadkeeda ogaado iyagoo sida meeshiis u sii fadhiya ayaa haddana waxaa jidkii soo maray nin boqol wata iswaraysi kadib markii uu xog warramay ayuu isna go'aansaday inuu sheekada dhammaadkeeda ogaado afartoodii oo meesha siduu u fadhiya ayaa waxa u yimid cifriidkii oo seeftiisii qarada weynayd wata wuxuu soo qabsaday ninkii taajirka ahaa si uu wiilkiisa ugu qisaaso markaas ayaa waxaa hadlay odaygii deerada watay wuxuuna yidhi jinni yahow taajkii boqorradow haddii aan kaaga sheekeeyo sheekadana dhex martay aniga iyo deeradan oo aad ka hesho ninkan dhiiggiisa 3 meeloodoo meel ma ii hibaynaysaa markaas ayuu cifriidku yidhi haddii ay cajabiso haa waan kuu hibeynayaa markaas ayuu odaygii sheekadii ku bilaabay sidan deeradan aad u jeeddaa waa xaaskayga ahna in adeertay iyadoo yar ayaan guursaday muddo markaanu isqabnay oo aanay waxna ii dhalin ayaan waxaan samaystay jaariyad waxayna ii dhashay wiil aad u qurux badan wejigiisuna iifayo sidii dayax 15 oo kale waxba yaanan warkugu daaline maalintii dambe ayaan safar aaday markan baxay ayay gabadhaydii oo sixirka wax ka taqaanay sixirtay wiilkaygii iyo hooyadiiba iyadoo ka dhigtay lo iyo dibi kadibna waxay u dhiibtay ninkii xoolaha ay qaabilsanaa markaan muddo kadib safarkii ka soo laabtay oo aan reerkii imi ayay gabadhii ii sheegtay in jaariyadii dhimatay wiilkaygiina la waayey meel u jaan iyo cirib dhigayba anigoo arrintaas aad ayaan uga murugooday maalintii dambe ayaa waxa dhacday in la gaadhay ciiddii udxiyada anna si aan udxiyo u qasho ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ayaa waxaan ku idhi lo aad u buuran ii soo qabo markaas ayuu ii soo qabtay lo'dii jaariyadda ahayd markii la ii keenay ayay rafatay oo oyday anigoo yaaban ayaan qalay laakiin waxba way ka soo bixi waayeen kaliya waxay noqotay laf iyo maqaar anigoo arrintaas aad ayaan ula yaabay markaas ayaa ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ku idhi ii keen bal dibi maadaama lo'dii hore hilib laga waayey balse haddana wuxuu ii keenay wiilkaygii dibiga ahaa marka la ii keenay ayuu isna ooyey oo raftay intan ka yaabay ayaan ku dhahay waar dibiganna iga kaxee oo mid kale ii keen markaas ayuu mid kale ii keenay oo qalay laakiin waxaad ogaataa intaas waxaasoo dhan dhacayaan gabadhaydii wayna daawanaysaa markii sheekadu halkaas maraysay ayay Shahrisaad ogaatay inuu subaxii la gaadhay markaas ayay sheekadii iyo hadalkii u bannaan joojisay
markaas ayay walaasheed ka yarayd ee daniisaad tidhi maxaa ka macaan badan abbaayo sheekadaada waxaan jeclaan lahaa inaad noo dhammaystirto markaas ayay Shahrasaad tidhi haddii boqorkii oggolaado inaan noolaado sheekadan waan dhammaystiri doonaa habeen dambe sidoo kalena waxaan idiin sii sheegi doonaa sheekadan mid ka sii fiican markaas ayuu boqor Shahriyaar yidhi waa sheeko xiiso leh ee hadilin ilaa ay sheekadan ka dhammayso sidii ayuuna ku go'aansaday inuusan dilin ilaa ay sheekada ka dhammayso subaxii markii la gaaray waxa yimi wasiirkii gabadha dhalay oo kafanteedii wada aadna u murugaysan balse markuu ogaaday in gabadhiisii nooshahay wuu la yaabay aadna uu u farxay